دار السلام دارت النبات قليدا دار الخلد دارت وارتانكا دار الحيوان با إلهي دارت نولشا وصاحبك هي سديد مقع با قرآن كان لغو شيئا جنة وين هلا سديد مقع جنة عدن جنات النعيم جنة الخلد جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس هذا إلهي ويدي سنيسان وضباهي أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقصر الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقف جيجو وحا هذا عرش الرحمن كا ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مرودنا أيضا كبر قمام رسولك يدي فردوس الأعلى الله ينقيه فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كملها صحابة محمد هويني مدو أي نبي أن أوتم يدو مركا كعبا يسحنون كلا إلى هذا قلل كصوحدة صوحتانك ودي عجرتي مركز النبي أوتم يدو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا وان صحابي كتير وان دعا وحنون آدو دروين حنون كاسي الله ينقبض باديو دتكو هيانا الله كقادو وحنون قفكم مال شأو كدعو وسكور قبن ومير دبول سما يجيبي سبا ما انكي صور ما تقعي مركز النبي أن أوتم يدو إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي أن لا أتكشف يا رسول الله جدتك أيها كدعا وان صوحا لأن مركانا مرض أيها يقبل إلها انتو والله أركا إلهي إيوي دي بيتري حنونك إلهي إنو يقاضو مرضنا يقبل إله منه مركاب النبي عليه الصلاة والسلام وعود إن شئت صبرت ولك الجنة هداد دونت الجنة أيام كوغو هداد دونت واد الصبر حنون كاسو الجنة إلهي كوغو سين دونا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذاتك الدوية دوشي هذا كو الصبر كو أتكيست بلايدي مصيبة لسو درستا ثواب كوغا الجنة إلهي كدقيا أجر كوغا بلا حساب إلهي سينيا هداد دونتنا وانكو دعين إلهينا عز وجل إنه كعافية حنون كابان كوبري مركابيتنا ونسكن نقول إيكادي لأنه ويسون نقطو النبي يؤتم يدي مركاب النبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيسني إلهي الجنة ويدي بي كتري بس شكدا مربى هذه جنة لقو هلايو هلقا كدف لكن مد إلهي ويدي ما شان دون هاسكا دعي مرض ينيقب بإله من بس iyadoo miyir daboolantay oo maankeegii uu tagay ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxa laga yaabaa gabdhaheena qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jirkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir zaman nabiga sheegay laba qolo adduunka iimaan buu nabigu dhoo soo socota qolab jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nabigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nabigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqyada intay ka kaxeeyaan bay ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdha maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalloocinayaan buu rasuulku yidhi sidaa isku qalqalloocinaysa ragguna sidaa u sii eegayaan ula qalloocsamay إذا بقول ورها إيجنا عندها قلابو وزيناها للناظرين أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يان بو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يان
jannadana markay carfigeega waxaa la helaa 500 oo sano markay meesha loo socdo qofka u jirto gabadhan muuminada saxaabiyada madow ayadoo maankeygii iyo miyirkeygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nabiga ku tiri xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku si fiicana waa u duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ibn Abbas Allah raalli ka noqde ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nabiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nabiga soo gaadhay buu ku oran jiray ala uriika imra'ata min ahli aljanna haweeney ahli aljanna ama ku tusa markaa bay oran jireen ha haweeneyda madow ee halka maraysa waa ahli aljanna buu oran jiray ibn Abbas Ataa ibn Abi Rabah buu tilmaamuu ka yiri Ataayow haweeneyda madow soo ma arkaysid ha waa ahli aljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tiri 10 mubashiriina bil janna baa la sheegay hawa dumarkii jannada galaya hama la sheegay khadiija radiyallahu anha al mu'minin mubashira bil janna kaligi jibril alayhi salam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid alayhi salatu wassalam wax kala masido allaha salaamku salaam ka wada ayuuna u sida خديجة الكبرى رضي الله عنها المؤمنين بوسدا قل يا محمد المؤمنين خديجة الله سلام قاسو سلام أيي وعن اللي يقول بشارة قصر الجنة كويا لا إله ودياريه أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كيري سليمي حليتو لجنة أيان قالوا إلى هي التصي أضا يهرس عدنا وانكو أركب رسولك كسو يري فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيا يري فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يري هوينك أمة النبي محمد الجنة قالي دونا وقبضها وقود رجس الرئيس أكبر وقبضها برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة وإيدا إيا ننكيدي إيا إننكيدي عمار ماركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة دقح ذي إيا جقعي قال لقوا عذابا يو وأمرك دينتو غريب كهيدا مكة لا عذابا يا مؤمنين إي قريشي أي عذابا يسا صحابة رسولك أيو النبي قد كريم دي سمية وأم عمار هي أذكي ياسر هي إنك عمار ولا عذاب أيو مركز سيدة دين الدهر هكذا يا رسول الله سنة كأردن أنكم مدبك يا عذاب كما كجرينا مركب النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو النبي يقول أتكيست أبا الكينو إنك واجنة ويانا hadday jannada ay maqlaan waxa dhibaato adduunyada la soo daristo way halmaamayeen iyagu way bogtaa haweeneyda madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yiri haddaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daabay ku tiri bas halkiisa ku dhaaf rabi'ata bin ka'b al-aslami radiyallahu anhu khadimkii nabigeenuha alayhi salatu wassalam أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنين كمدة أيوها مساجد كالنبي قلنا مؤخرة دي سدا بأيو دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين انهلجر عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها مركي النبي أكفر ديان بالليلي حتى عورضوا دو سيدنا أموقا marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa leeyahay iyagoo cawradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timir uu nabigu siiyay laba timira maanta aad ma ku qadayn lahayd barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad
shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay hal sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiic oo labadan qabso war fulaan oo labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa buu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadhihi ya Abu Hurayra xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu hooyadii baan u geenayaa buu kay markaa buu nabigu hooyadaana annaka kugu dhiibaynay iska